filimkeena caawaya wuxuu ku saabsanaan doonaa bal ka waran haddaa 20 sano miyir dabooleed 20 sano ka bacdina aad soo miyirsatay markaas maxaa samayn lahayd torow uu miyirkaagu taan noqday dadkii iyo qaraabadaadii iyo hooyada aabbaha walaalaha ma garan lahayd tani waa sheekada filimkeena balse laakiin waxaan idinka codsanaynaa in aad filimkan markuu idin soo gaaro aadna gaarsiisaan 5,000 oo subscribe sidoo kaleetana aad muuqaalka reeg noo saartaan saaxiibayaal muuqaalka aad doonaysaan igu sheega commentska si aan idin soo kulaasayo Dini Podcast hoyga dramada caalamka hana ka iloobin subscribe-ka gabartaan lagu magacaabo Riina muddo 20 sano aan qaboojiye ku jirtay maadaama miyirkeedu maqnaa ayaa hadda soo kacayso gabartaan waxaa ku dhacay cudurka loo yaqaano shimbirowga kaasoo dadka miyirka ka qaada hadda Riina waxay isku daysaa inay soo baxdo oo ay bas raacdo baska markay raacdo lacag $500 ay ku heysaa darwalka waxay ka codsanaysaa inuu baaqi ugu soo celiyo darwalka ayaa aad ula yaabaya ayadana ma oga in uu isbedelay baabur raacay ayada $500 ayay ku hogtay maadaama muddo 20 sano ay soo xisay waxa la baska iska soo raac lacagta aad bixisay iyo lacagta laga rabo isku mid oo lacagta laga rabo waa lacag 1,033 gaaraysa baska iska soo raacay waan la iska dhaafa laakiin markaan baska isu degaysa waxaan soo aadaysaa meel guriga markay imaato telefonkeeda boorsada ku jiro ayaa waxa isku dayaysaa inay geyso meel telefoonada lagu sameeyo maadaama kan la siiyay meeshii telefoonada lagu sameeyay ayay geeraysaa waxa loo sheegaa telefonkeeda inuu shaqeynin oo muddo 20 sano ka hor laga guuray aad iyo aad ay u yaabeen booliska iyo markaan aysan police station haysa waxay dhaysta familkii ayaan way goorma ayaa weysayaan waxay dhaysa waxaan way hal maalin kor dokumentiyada iyo alla idinkaari waxaas daysadkan boorsada ayay soo qaadaysaa boorsada markay soo qaado waxay soo daadanaysaa dokumentiyada iyo idinkaarada waxay sitay ninkii police stationka ayaa idinkaarkada fiirinayo mise waxaaba ku qoran 1976 bismillaah rahmaan booliska ayaa isku naxayo oo aad iyo aad u yaabay waxaana la dhaca 20 sano ka hor ayaa idinkaarkan la sameeyay maxay tahay aad u la yaabaya gabarta ayada naftirkeeda markaan way yaabaysaa hooyada iyo familkeeda iyo reerkeeda ayaa loo wacaya hooyada markay saas ugu qabatay dhalo waxaan ay gabartaada hooyada ayaa aad u goynayso hooyada markay oo soo wiilashii iyo aabi wax dhan ay ku soo ordeen hooyada maxaa ku dhacay allah waa adeegta gabartay 20 sano ka hor aweyn ayaa ila soo wacday odaga macala way meena ilmi way soo ordayaan tax in raacana isku dayaan gabarta Riina way soo baxaysaa iskuulkeed agtiisa ka imaanaysaa laakiin dadka ku hareeraysan oo telefoonada isticmaalaan waxay dhahayaan ma fahmaysa maadaama gabartan ay soo shaqeyn muddo 20 sano dadka dhan waxay sheegaan way garan weynaysaa marka waxay isku daysaa bal inay kacdo socoto waxay arkaysaa boorarka dhan iyo waxyaalaha dhan oo ay ku qoriyeen 2009 xitaa dadka dhabarkooda dambe waxa ku qoran 2009 way yaabaysaa ayada taariikhdan goorma ayaa la gaaraysaa laakiin markan waxay xaqiiqsanaysaa in ay muddo 20 sano ay soo sanad marka walaalkeed ayaa wadada iska hor imaanayaan walaalkeed ma garan weynayo wuu garanaa wuu ku soo ordaa ayadana wuu soo xisaa hab ayay isasiirayaan waana isku marxabeynayaan bal ka waran walaasha oo muddo 20 sano aad arkay markaan wala soo wadaa gabarta markaan markii la soo wadana waxa la keenay guriga markii la keenay hooyada aabbaha ayaga dhan way isku marxabeynayaan meel ay ka baax dhigan jirto waxaas ay tagaysaa laakiin waxaas uu sameey jirto wax ma aqaanay reesa laakiin kaliya hooyada ay markaan laafta gelinaysaa way adoo la cadinaysaa markaan waxa loo celinaa sidaysan ku dhacday gabartan meesha 20 sano ugu jirtay sa u jeedin gabarta ayaa meesha la keenaya professorkan oo timaha badan ayaa loo keenaa laakiin isla professorkii ayaa wuxuu ku dhimanaya la arkay shil gaari ayuu ku dhimanaa muu jeedin soo jeeda shil gaari oo ku dhimanaa shilkan gaari ku dhinto gabartan waxay keenaysaa in qaboojiye muddo 20 sano ugu hilmaamsan ku dhacday laakiin midda muhiimada ay waxay tahay soo jeedin gabarta Riina lagu magacaab isma bedelin ma ayna duqoon waa sideedii oo iska qurbaantaa marka Riina wiilkana Duujaan lagu magacaabo ayay waxaga isfahmayaan oo ay sheekaysanayaan laakiin meesha ka sax xanuun kale ka socdo wiilka Duujaan markuu gabarta la sheekaysanayo wuu fahmi weynaya sababtoo ah mar taariikh dheer ay uga sheekaynaysaa mararka qaarna waxa joog ayay wax hor ka dhigaysaa uu ku wareera aad iyo aad ayuu ugu wareeraa markaan xasuus ayay gabarta galaysaa oo waxay galaysaa freezingki iyo meelaha qabowga ee ku dirtay ayaa xasuus galaysaa iyo sidoo kale waxay galaysaa markuu ninka professorka uu ku duray erbata xasuustaas ayay galaysaa oo waxa way soo xasuusanaysaa markaan xitaa waxay soo xasuusanaysaa inuu temperature-ka zaad u ziyaado doono uu qabow u daraan doono markuu erbada ku diray ayay soo xasuusanaysaa Riina markay waxaan soo xasuusanayso waa mar ay dadka dhan la yaabeen oo dadka leeyihiin maxaa ka khaldan Riina maxay tahay waxa ka sheekeynaysa iyo maxay tahay waxa u laabanaysa adiga kaale gabar ayaa tahay Riina markaan xasuusta ayaa ku badanaysa u jeedin waxay soo xasuusanaysaa markay soo bixisay sidoo kale waxay xasuusanaysaa maray dabaqaysay sidoo kale waxay xasuusanaysaa maray buwaagteedii 10 waxa akhrisanaysaa sidoo kale waxay xasuusanaysaa yaraanteedii iyo markay saaxiibadeed la baashaalisay waxyaalaha dhan ayaa xasuusanaysaa markaan Riina waxa arkay ninkii waardiyaha arkay oo isku waardiyaha kan isku dhigin aad ayuu la yaabaya ayadana wiil ayay xoog u dharbaaxaysaa wiilka marka xoog u dharbaaxay wiilka saaxiibana wadada kaana ifahan ma ifaantid maxay ifahmi laad ayay leedahay gacanta ayuu ka soo qabsan meel ay tag waxaan sheekaysan waxay leedahay inay ifahantid isku day doon khaano aniga waxaan ahay gabar 20 sano ka hor soo xisanayd oo hadda soo kacday ninkan uu aamin weynaa waxaas aniga ayaa cadeyn ku wadaagay
laakiin mararkan reena waxay isku dayaysaa inay iskuulkeeda ku laabato waxaan dhahaysaa waxaan rabaa inaan iskuulkeeda ku laabto oo aan kooxaasado laakiin markaan xisaab ayay gelaysaa waagas lacag waxay ku shaqaynaysaa gaarsa $200 lacagta ayaa la xisaabinaa lacagta markii la xisaabiyo lacag aad u tiro badan ay noqonaysaa aad ay u fajacayaan maxaa stationkan iyo goobtan oo TV-ga joogaan way rumaysan kari waayaan waxaan dhahay nimankan TV xitaa anaga lacagtaan ma heli karno ee lacagtaas haddii maanta lagu magdhawo taajir ay noqonaysaa markaad iskuulka imanaysaa macalimideeda u imaanaysaa waxayna leedahay iskuul 20 sano koor aan joojiyey ayaa rabaan dhamaystirto macalimadda waxay dhahaysaa ID-ga iyo baar ama baajkaana ay baar waa loo baara macalimadda ayaa yaabayso way fajacaysaa iskuulkay u soo laabanaysaa kursigeeda ay farsanaysaa reena markaa kursigeeda farsa wiilkii boyfriendga ay farsanay aad ay u qoslaysaa macalinka ay xisad soo galaayo oo ah ex-friendigeedii ama wiilkooda saaxiibaan wuu fajaca uu yaaba meesha ku dhaca sababta waxaa arkay reena oo 20 sano kahor saaxiibaan wiilna wajigeedu isbedel aad iyo aad ayuu u yaabayaa wuuna suuxaa kabacdi maxaa dhacaya qiso kale ayadana aad u cajiib badan kasoo ah inay wiilka saaxiiba ahayn ayadana cudurka ku dhacay oo shimbirow waxa ku dhacay asagiina sidii oo kale ayuu suuxaa waxaana la geynaa isbitaal waxaana loo wacaa markaan familkiisa ayaa waxaa lagu dhaha wiilkiina Doron Khan uu aamusan yahay wuxuuna yaalaadhee isbitaalka lagu magacaabo Ambah isbitaalkii ayaa waalidka iyo familkii ayay soo aadayaan familkii ayaana soo ordayaan familkii markay imaadaan wiilka wajigiisa ayay garan weynayaan wiilka ayaa wuxuu ekaanaa qof duqduq ah oo weynaaday maadaama cudurkaa shimbirow ku dhacay walaalihiis waxdhaan kuma naqaano kuma garanayno maxay tahay wajigaa ugu isbedelay hal maalin ayaa naga maqnayd siduu wajigaa saan ugu duqobay sidee ayaad saan ugu weynaatay aabiis ayaa imaanay aabiis markuu imaado taleefon ayuu wacaa taleefonka markuu waca wuxuu la hadlaa wiilkiisa wuxuuna ku leeyahay war aad u soo xarar oo ii imo wiilkeennii ayaa wuxuu noqday qof aan la garanaynin hooyadii iyo maamadii iyo dadkii dhan ayaasa u jeedin waa u imaanaya markuu maamaba garanayaanba asaga laftarkiisa age ayuu noqonaa ama qof duuqa oo da'diisa isbedeshay ayuu noqonaa waxaa maqli jira oo dadku isku habaara ilaahay baan kaaga baryay shimbirow kugu dhac cudurka shimbirowna waa cudur aad u daran hooyada ayaa garan weynayso aabbaha weynaysa u jeedin meesha xaalka dhan iyo jawiga dhan ayaa xumaanayo hooyada ayaa ku dhahaysaa hooy maxaa kaa qalda suu jiraa ku noqday ugu jawaab fadhaa hooy idinka laftarkiisa maxaa idinka khaldan aniga wiilkiina lama iyo maxaa sakii bedelay aabii ayaa ilmeynaya gabarta walaashiis ayaa hadlaysa waxay dhahaysaa horteena waa xariirana ayna keen wiilka laftarkiisa ayaa soo kacay wuu soo xarara isla hadda haddana waxaa dhacaysa qiso kaloo cajiiba wiilka ayaa 20 sano aslan gadaal loo celinaa soo jeedin 20 sano wiilka gadaal loo celinaa asla tarkata freezing iyo qaboojiye ayaa la gelinaa wiilka markii freezing iyo qaboojiye la gelinaa aabihiis iyo hooyadiis iyo waxa dhan way ku jira wareegaan mana garanayaan wayna ku wareerayaan markaan hooyada ayay waxay ku dhahaysaa hooyo wiilkaygiiyo armaan weji caaga lagu geeyey aabbahana sidoo kale wuxuu dhahaa wiilkaygiiyo armaan madaxa lagaa soo bedelay baryaha dakhtara dadka madaxa ka bedela ayaa soo baxay hooyada ayaa hadlaysa waxay dhahaysaa wiilkeena waa inaan saan ku daawanin waa inaan saan ku fiirsan waa inaan qaadna waa meel geynaa oo meel lagu soo daawaya aan geynaa wiilka ayaa wuxuu dhahaa aniga maxaan qabaa muraayadda markaa isku fiiri wejigii waaba caadiye asagana markuu isfiiriya caadi ayuu noqonaa brofesorka laftarkiisa asaga waa nin la yaab leh mar walba qof loo geeyo wuu suuxaa tin weyn soo ujeedaada brofesorka tin weynaa wuu iska suuxsan yahay wiilka ayaa u tagay wiilka markuu u tagay ayaa wuxuu leeyahay dadka ayaa ila yaaba kabacdina wuxuu soo xasuusanaa brofesorka in uu shil galay waxaan oo dhibaato aan uu asi ka dambeeyo dadkaanu uu sidaan u galay kabacdi wiilka wiil ay wax isku yihiin oo qaraabayiin ayaa u imaanayo marka uu imaado aabiis ayaa soo wadaayo meesha ayaa la keenaa wuxuu dhaha saaxib waxay hooyo aabbo kuu sheegin waa wax runa wejigaagu wuu isbedelay laakiin wiilka wejigiisa markii la fiiri waaba yaanka aad ayuu u qurux badan wuu yaraaday oo wejigiisu isbedelay waxayna leeyihiin wuxuu wiilkan wejigiisa isku bedelay brofesorkii ayaa markaan soo naxay aabbaha ayaa markaan waxoogaa farxad dareema wuxuu leeyahay wejigaa wuu fiican yahay dadkii meesha joogay ayaa hal mar wada hadlaya waxayna wadayn wejigaa markaan yaanka u noqday waa yaraatay oo wejigaa wuu fiican yahay meel xaflad ayaa la keena ubax ayaa lagu doonsinayaa xaflad iyo waxay u dhigaan reen iyo qurux ay u dhigaan wiilkana saas ayuu ku fiicnaanayaan laakiin wiilkan Doron Khan lagu magacaabo ayaa hadda wuxuu bilaabayaa inuu raadiyo gabartiisii jaceylka ee isjeclaadeen waa gabartay waa riina oo laftarkeeda familkeeda ka maqnayd muddo 20 sano ah ayadana freezing ku jirtay maadaama ay loo isjeclaadeen aabbaha ayaa halka wiilka ayaa markaas la aabbaha ayaa ku dhahaya hadda waa fiican tahay okay ayaana tahay bal sidee ahaan jirta aan ku tusino telefishinka iyo warqadaha tusnaa sidaan iyo sidaan ayaa noqotay ayaa aabba la dhahay ma la socotaan wiilka markaan inay da'da saxda haddii loo sheegay 44 sano jir waxa sax tahay waa saxaafadda sidoo kale kafartan waa 44 sano jir wiilka ayaa waxaan TV ka soo fiirsaday inaan jiro da'da 44 sano jir laakiin aabbaha kama dhuuysanayo wuxuu dhahaa aabba aniga 29 sano ayaa ii jirtaa aabbaha ayuu yunaha ka qabanaa aabba aniga ma waale aniga ma nafta iga qaadaysaa maxaa kaa khaldan waa ogaashay hal iyo habeenba waan kaa nasan karin ah markaas u jeedin wax isku soo laabanaan reena oo aan gabartay saaxiiba ahayn ayadana wajigeeda isma bedelin weli waa gabar daa'ir weli qurux badan tahay ilaahay ayaa u gargaaray maa la dhihi jiray 20 sano meel qabow ku jirtay welina sidaani oo qurux badan
wiilka ayaa markaa wuxuu leeyahay aniga waa yaabanahay xaalkaygana ma fiicno waxna ma xasuusti markaan riidna ayaa aad u murugeynaysa aadna u ilmeynaysa riidna waxay leedahay xabiibi macaan boqorkeygiyow geesigeygiyow ha iga murugin kaale afka aan kuu geliyey how aan kaa farxiye laabteeda hab soo dheh jacaylkaygiyow aniga ayaa kuu nool adduunyadana kuu jooga markaan arday hore ayaa waxaa kaa riina oo intaasna ay kala maqnaan riina weliba way yartahay waa saaxiibadii hore way isla qusqusayaan way isla boodboodayaan way yaaban yihiin qofkaan riidanayaa gabdhaha ka tataaban wayna garan laayihiin markaasaa u jeedin wiilkaan lagu magaca tiibaha ayaa warqadahan iyo waxaan ayuu akrinaya warqadan waxaan markuu akhriyo waxa oo soo ogaanaa waxaanu dhibaa inuu ka dambeeyey ninkan bartasoonka ah markaan riine ayaa soo baxayso iyadoo xasuus ugu jirto markii la suuxanayo prison ku jirtay waxay u imaanaysaa saaxiibka Doon Khan waxay leedahay Doon Khan waan ku jecelahay sidaas ayayna xiriirkooda ku sii wadanayaan xiriirkoona kuna sii qurux badnaana markan waxay isleeyihiin macaanow qaaliyow sharafow geesigiiyow geesideedii garabkaygiyo sidaasay isleeyihiin adiga saaxiibka ama saaxiibadaasaan nees dhexdii saan isku dhiirigelinaan waxay dhibaato ay soo mareen way ka tegeen markaan waxay leeyihiin temberajarka xanuunka ayaa ah u badan waa temberajarkeehe waa midka jacaylka aad u mahadsantihiin intaan muuqaalkan iyo muuqaalka ku kulmi doono waxaan idinka codsanaa inaad muuqaalkan leeg noo saartid qof walbo muuqaalkan arka bilis leeg noo saara sidoo kaleetana subscribe noo saara oo nagu soo biira waa mahadsantihiin qaraabo aad u mahadsantihiin